Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Taariikhda waxay ku aadan tahay 24 bishii 10aad 1447 ku beegan 12 bishii afraad 2026. Natiijada wadahadalkii ku socday Islaamabad. Madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka ayaa sheegay JD Vance ayaa sheegay in wadahadaladii ka dhacay Islaamabad subaxii Axadda ay oo wax heshiis ah aan laga gaarin. DJ Vance wuxuu sheegay in Mareykanka uu soo bandhigay dalabkii ugu dambeeyay ee ugu fiicnaa ay u soo bandhigay Mareykanka, laakiin Iran ayaa diiday shuruudana soo hordhigtay. Warbaahinta sida New York Times iyo Axios sidoo kale khilaafka ku sababnaa in Iran ay rabto inay maamusho wadada Hormuz iyo inay diiday inay ka tanaasusho uraniumkeeda nuclear-ka. Jawaabta Iran. Gudoomiyaha baarlamaanka Iran Mohammad Bagher ayaa sheegay in wafdiga Iran uu soo bandhigeen hindisooyin wax dhisaya, laakiin Mareykanka uusan kasbanin kalsoonida Iran. Ra'iisul baarlamaanka ayaa wuxuu dhahay Iran waxay soo bandhigtay hindisooyin wax dhisaya, laakiin Mareykanka muusan kasbanin kalsoonida Iran. Walaalayaal, intaasaan kusoo gabagabeynayaa wax yar oo ahaa oo natiijadii ka dhacay wadahadalada oo laisku fahmi waayey oo fashil kusoo dhammaaday. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Nabadiina.